السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاهد نسوقاري بوقي الصومال زوايا غير محكية. طبعا بوقا وحالو دابعي ذلك مصر وحنا صباحي اسبوعي هذا نسخة كوباد أي أني سوقارتي بوقا الصومال زوايا غير محكية وحكشة كينيا صومالي ذا سجود إيه ذلك صومالية وحكون على بربر وحكون على الدجال وحكون على عقبات الرفات دوك مركب إن بدنا كم ذوي قانان لبعض ذينا الدجال كينا بربر كين لكن ما يقانان وحيابه ونكسر إن قال لنا قرح بدن هذين نقطة الضل هذين نقطة الضد هذين نقطة السجال هذين نقطة السويال الصومال زوايا غير محكية وحو صاحريا سدح بوق oo ah saddexda buug ee ugu horeysay oo isku mowduuc ka sheekeynaya Soomaalida iyo halgankooda iyo quruxda ay leeyihiin iyo walaaga dhulkooda iyo waxyaabaha kale ee ummadaha kale ay iska garaneeyeen mid waa buuga labaad waxa weeye waa guure oo laga yaabo in badan oo idin kamid ah inaad wada akhrisateen waa buugii labaad ee aan qoro iyo buugga saddexaad oo hadda ka maqan maktabadeyda oo la jaruba ma wara asafana waa buugii koobaad saddexdaas buug marka ee silsilada ah waxay ka hadlayaan hal mowduuc oo ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay leeyihiin iyo dhibaatada lagu hayay ama gumaysi ay u geysto ama iyaga isu geystaan dagaalada ay galeen halgamada ay soo galeen iyo in badan guulaha ay gaareen oo madax kale ka daason guure waa af Soomaali labada kalena waa af Carabi buugan marka ka sheekeynaya xagal aan aad looga sheekeynin ama aysan dadka Soomaalida ahayn aysan garanaynin dabcan in kastoo ay qoraaga buuga hadana dhowr meel ayaan ka jeclahay meesha oo horeysay aan jeclahay waxa weeye waa dadka aan u hadeeyay buuga yaan u hadeeyay ama yaan u hibeeyay buuga aan hibada buuga aad iyo aad ayaan u jeclahay shakhsiyan sidaan noqonaysa ila dhahaaya al-hurub إلى الهاربين من وطنهم إلى منفى لا يشبههم إلى القابضين على جمرة الصومال الكبير إلى المقاومين الذين رفضوا الانبطاح ولم يخفهم ضعف الشعب أمام جبروت خصومه إلى العالقين وراء حدود لم يختاروها يوما إلى حاملي لواء الأدب وحماة الثقافة في عصر الذوبان بوغو حنو هبيي قف كستا او دغالك wax ku noqday ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama ehelkiisa ku waayay waxaan u hibiyay dadka Soomaaliyeed ee ka cararay ee ka qaxay dhul u eg oo ay leeyihiin u qaxay qurbe aan u ekeen aysan lahayn ay qaxoti ku yihiin ay laakiin dooranin iyagu aysan dooran dadka ku dhagan mabaadiida Soomaalinimada Soomaali weyn walaalnimada Soomaalida ku dhagan xilli ay awood badan tahay dabaysha kala qoqobka iyo kala geynta ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ah oo ku dhagan mabaadiida guud ee diinta iyo dhaqanka iyo Soomaalinimada iyo Islaamka oo aan u hoggaansamin cadawga ummadda Soomaaliyeed cadawga doonay ahaado waxaan u hubiyay kala buuga dadka ku go'doonsan gadaasha xuduud aysan dooranin xuduud lagu qasbay la nool dawlado aysan la dhaqan iyo diin iyo aragti iyo dadnimo aysan ahayn la nool ugu dambeyn waxaan u hubiyay qof kasta oo Soomaali ah oo xambaarsan dhaqanka iyo diinta iyo afka iyo hidaha Soomaaliyeed xilli in badan oo ummadaha kale kamid ah ay milmeen oo dhaqamada ka imanaya badaha gadaashooda ay ku milmeen si guud buug waa 180 waa 180 bog marka laga reebo Google Dhiga ama muqaddimada marka laga reebo wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo 10 cutub ayuu ka kooban yahay ana cutubkaan ugu jeclay waxa weeye la ahad yacuud bil harbi kama kan kaas wuxuu ka sheekeynayaa saameynta uu dagaalka Soomaalidu u geystay dibka uu geystay xitaa dagaalka laga baxo saameyntiisu inta ay sii jirayso ayuu ka sheekeynayaa umuman buugu aad ayuu aan isleeyahay uu wanaagsan yahay marka la fiiriyo waxyaabo ka sheekeynaya waxa ka mid ah Afrikaan ah oo sidoo kale dagaal galay oo jabay oo burburay oo qaxay oo isdilay haddana heshiiyay oo dawladda oo nabad ah oo sharaf ku nool maxay naga loo diiday waxyaabahan jecelahay waxa ka mid ah buuga oo ka sheekeynayo dhibka haysta Soomaalida ku nool South Africa ma arki wali buug ka sheekeynaya ama qoraya oo laga yaabo in maqaal iyo waxyaabo kamid laga sheekay laakiin buug waxaan ku soo qoray dhibaatada ay South Africaanka Soomaalidu u geysteen waxa jirtay xilli ay Soomaalidu South Africaanka hoggaan u ahaayeen oo ay cod u ahaayeen aan dhaho ay cod u ahaayeen oo ay raadin jireen xorriyadooda raadin jireen oo madaxda South Africa ay xarumaha Afrika iyo caalamka ay codkooda geyn jireen annagu markaan u baahanay maana ka helay waa lagu nool yahay nabad waa laga soo shaqeystay laakiin dilka iyo dhibka iyo karaama dilka dib badan ay nagu haysaa
waxyaabo kale ka sheekeynaya waxaa ka mid ah dhul Soomaaliyeed ayuu si fiican uga sheekeynaya gaar ahaan deegaanada Puntland hadday noqoto gobolka Nugaal hadday noqoto gobolka Bari ilaa iyo Sanaag iyo Baran dhulkaas ayaan aad iyo aad uga sheekeynaya waxaa ka mid ah Soomaalidu maanta dagaal iyo dhib galeen rafaad ay galeen ciwaan aad u saameyn badan oo la dhaho Soomaalidu ma u xiiseen dictatorkii xilligii dictatornimada dawladii militariga ma u xiiseen waxyaabaha uu sheegay waxa ka mid ah dhulka Soomaali galbeed iyo dhibka dadka ku nool si loo rafaadiyay iyo dhulkooda si loo kala qaybsaday maanta kheyraadkooda si loo boobayo ayuu ka sheekeynaya waxyaabaha uu ka sheekeynaya waxa ka mid ah 11 October iyo waxyaabaha la soo maray dadku waa labo qof aad u amaana oo wax muqadas ka dhiga iyo qof aad u liido oo ka dhiga wax laakiin ma jiri karta aragti saddexaad oo dhaxaad ma jiri karta taasaan ku soo qaatay waxyaabaha uu ka sheekeynay waxa ka mid ah isbardhiga isku bardhigaya Soomaaliya xilliyadii hore luga Soomaalida iyo maanta waxyaabaha laga sheekeynay waxa ka mid ah waxyaabo badan oo noocaas ah ayuu ka sheekeynay ka mid ah suugaanta Soomaalida haddii soo gaaray waxaan u maleynayaa hal saac ayuu gacantiisa ku jiraa waxaan rajeynayaa insha Allah taala inuu soo wada gaari doono wada akhriyo doontaan qofku soo gaarina insha Allah dhawaan maraa sii fogeyn asagoo PDF ayaan soo deyn doonaa soo gelin doonaa internetka soo gelin doonaa sababtoo ah ma aaminsani in waxbarashada iyo aqoonta waxa ku saabsan iyo buugga akhrintu ay noqdaan wax ganacsi ay noqdaan ma aaminsani insha Allah taala biligar gudahood waxaan rajeynayaa in asagoo PDF heli kartaan qofkii kale heli kara asagoo caadi ah dhawaan bishan aan ku jirno aakhirkeeda ayuu soo gaari doonaa Soomaaliya soo gaari doonaa Muqdisho Kismaayo Garowe Hargeysa Jigjiga inta buu soo gaari doonaa aad iyo aad baad maasantiin farxad baan rajeynayaa